Waxaan halkan ka soo gudbinayaa maapka ku saabsan Soomaaliya iyo Kenya xuduudda wada qaybiya iyo xuduudda sida rasmiga ah iyo wixii naga maqan oo walba aan tabayno in la rabo waxyaalaha hadda aan u baahanahay in aynu jiilka dambe ay ka fikiraan. Anagoo dhul naga maqan ayaa haddana Kenya sii doonaysa dhul inay naga qaadato. Marka waa ayaan daro haddana dad Soomaali ah u ololeynaya inay Kenya dhulkaasi naga qaadato. Haddaba dhulka manfaci lahaa ugu fiicnaa oo doogga ahaa cagaarnaa ee saas nagaga qaadatay. Waxaa ka mid ah dhulkan waa halahan hadda idin muuqda aan idin maapka aan ka soo muujinayo. Waa halihii dhulka ugu cagaarnaa doogga ahaa Kenya ee hore naga qaadato gumeystaha siiyey. Haddana waxay dan ka soo gashay in dhulkii ee hore naga qaadatay kaalinta shidaalo ee kheyraadka macaadi shidaal meelihii ay ku jireen damac ka soo galo ilaahay qadartiisii Soomaali dhinaceeda soo mariyay gaalka wuxuu damacsanaa. Xuduudda waa tanaa xuduudda Soomaaliya iyo Kenya kala qaybisa ka soo bilaaw raasmi Ligooya ka soo bilaaw oo ujeedaan Kulbiyow oo ujeedaan tuulada Kulbiyow xuduudda la leh Kenya. Haddii nuqacna Kenya waxay ku andacoonayso waxaa way xariiqantaan meesha xagasha inta ka bilaabanaysa ujeedaan Soomaaliya qoran iyo Kenya xagasha meesha ka bilaabanayso. Haddii la raaco leenkan dheeri la raaco sida Kenya ay rabto oo ujeedaan Kenya iyo Soomaaliya inay ku wada qoran yihiin. Haddii la raaco leenkan la raaco sida Kenya ay rabto in loo calaamadeeyo. Waxay rabtaa Kenya badda in lagu daro si loo wada badda in lagu daro sida ay ku qaadato. Marka waxay u xalaaloobaan isweydiiseen haddii badda lagu daro Kenya inay anaka naga sii maqnaanayso dhul bad waxyaalo badan ee naga sii dhumayaan. Haddaba wax naga maqanba oo la rabaa xuduudda in la tirtiro waayo haddii leenka anagana soo raacno Soomaaliya wata xuduuddeeda Kenya dhinacaas ku doorna ujeedaan. Haddii soo raacno xagashii wadada dheereed intay xagalka leedahay angale kaleeda ama jiire kaleeda jiirada haddana waa in la soo leexdaa maapka sidoo qoraa adduunka waa kahay waa in la soo leexdaa. Kenya waxay rabtaa meeshaan jiirada in la toosiyo xagasha in la toosiyo badda lagu aadiyo ayay rabtaa. Midda rasmiga anaga hadda noo dhaxeeyo xuduudana waa tan laami ayaa u dhaxeeyo xuduudii waa wado loo isticmaalo soo raac Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku qoran ujeedaa soo raac leenkaani rasmiga oo leenka xuduudda rasmiga ah u socdo wuxuu ku darayaa badda ku darayo ujeedaan biyaha inuu korkiisa xariiqsan yahay maapka adduunka marka la fiiriyo. Dhinacaana laami ayaa ka maraya oo isku xiraya Raas Kamboni ilaa Lamu isku xiraya xeebta mara waa ujeedaan Raas Kamboni tuulada Raas Kamboni jasiiradda Raas Kamboni ujeedaan meesha xuduudda ilaa Raas Kamboni isku jira ugu yaraan 10 kiiloomitir 20 kiiloomitir 15 kiiloomitir saan qiyaasayo. Marka Kenya waxay damacsan tahay leenkan in la tirtiro oo xagashaan laga toosiyo. Ma isweydiisan Soomaaliyeena haddii xagashaan laga bilaabo oo leenka xagasha dhinaca ango jiiradan laga baabi'iyo leenka toos laga dhigo. Ma isweydiisan haddana soo wadno in Raas Kamboni ee qaadanayso Kenya sidaas ay ku deynayso Raas Kamboni. Marka haddaba la rabaa in wariyaashiina dadka cilmigu dhiyo inay soo bandhigaan maapka hataa waayo haddii maapka hasaan la fiiriyo xuduudda toos markii loo soo fiiro wuu jiireynaya xuduudda jiiruu gelinaya. Haddii wixii dacwadda targetka meesha ku jiro ujeedada ku jirto waxaa waaye u fiiriya xuduuddani badda galaysa xariiqantan oo caalamiga ah badda galayso sidaa bay u soo soconaysaa toos ayay u soo soconay waxay isku xirayaan xuduudda Tanzania aan leenahay. Sidaa Kenya waxay ku tahay lock
way xiran tahay. Haddii markab uu soo galayo oo Kenya markab soo galaya Mombasa ku soo xiran waa inuu hadduu dhinacan ka soo galayo waa inuu ruqsad weydiistaa Soomaali oo la soo hadlaa. Hadduu dhinacan ka soo galayo waa inuu Tanzania ruqsad weydiistaa. Marka dhibkaas ayaa haysta sida awgeed waxay dhaheen dadkan waa jiifaan way hurdaan oo qabyaalad iyo dagaal intay ku jiraan aynu ka faa'iideysano leenkan dheer sidaan ku tirtiri lahayn oo halaha yar kiiloomitirka sidaan ku tirtiri lahayn oo dhinacaan aan ugu toosin lahayn oo badda aan u dar lahayn aan falkeeda aan galno leenkan sidaan ku soo toosin lahayn Ras Kamboni aynu ku qaadan lahayn Ras Kamboni halaha shidaalka ku tiirsanna waa intaa halaha shidaalka ku tiirsan oo shidaalka laga qoday waa halaha oo hadda calaamadaha yaala. Marka Kenya waxaasay damacsan tahay Soomaali weynay waxaan leeyahay wariyaasha dadka cilmiga inay soo bandhigaan ay xaqiijiyaan dadkooda baraan maapka saxda ah. Mideeda kale markii maapkan la zoomka la sii fogeeyo xariiqantan yar oo rasmiga ah jiirada halaha yar galaya uu qarsoomaya wuxuu qolli waxaa muuqanaya bes leenkan dheer bes unbaa muuqanaya oo badda ku xirmayo aad u maleynaysa kullama adiga adduunka kaam aragtidiisa aad sii fogeysid xariiqanta yareed way sii yaraanaysaa warka way sii yaraanay lama arkayo Ras Kamboni baa muuqanaya xariiqanta yareed waa sii yaraanay waxaa la arkaa haduu adduunka markii maapka la fiiriyo waxaa la arkaa xariiqan toosan bis Kenya way qabatay waxay dhahay xariiqanta ujeedada ma fahamtay xariiqanta yar meesha ka muuqato aan la arkaynin Ras Kamboni aan muuqanin waxay rabtaa marka leenkan inay toosiso haddii la toosiyo meesha waxaa ka baxaa marka xariiqanta yar oo Ras Kamboni ka gadaaleysa ayaa baxaysa iyadana waxay rabtaa xariiqanta inay toosiso oo leen toos ay ka dhigto waayo markii laga sii fogaado leenkii wuu toosnaanaya waxay leedahay marka haddii leenkan toosan la raacana Kenya xuduudda Tanzania ee Kenya la leedahay iyadana waatana waa ujeedaa xuduudda leenkiisa asagana uu soo leexanaya markaysa dhibka jiro waa taa ahaysto leenkan fiir meesha ka soo leexanaya Tanzania fiir angalkaas uu soo leexanaya angalkaas saas u leexanayo wuxuu isku xirayaa Soomaaliya ku soo xirma waa kana badda soo galaya waa kan badda sida u soo galay ee kanoo badda saa u soo galay ee middaanoo badda saa u soo gashay ayaa isku xirmayso meelahan iskaga xirmayaan markaas waxay noqonay Kenya xeebaheeda dhan mid xiran xirnaanshahaasi waxay ku qasbantaa sidaan hore u sheegay markab waliba soo galayo inay dhinacaan markabkii ka yimaada inay Soomaali wax weydiisto saa ku soo galo dhinacaan markab ka yimaado inay Tanzania weydiistaan saas ilaa hadda ay ku shaqaystaan. Marka waxay dhaheen waxaan uga baxsan karnaa leenkan markii maapka la yareeyo leenkan toos inaan ka dhignaa roon Tanzania leenkeeda iyadana inaan toos ka dhigno markaas waxaan noqonaynaa mid open ah oo furan oo xeeb toosan furan ayaan noqonaynaa sidaas ayay fikradooda tahay ujeedadooda ay tahay inay Soomaaliya ku hardaamiyaan laakiin si ma suurta galayso adduunka ayaa kol hore xaqiijiyay waa ujeedaan meeshaas inay baabi'iso beerada Kenya mana baabi'in karto dada degan laamiya mara xuduuda mara waa ujeedaan dhul istiraatiiji ayaa mara hadda ka hor ayaan ku safray dhulkan arkaysiin waa laami dheer xuduud ah waa wada liisha ah waa kana ujeedaan wadada liishaha maraya waa kana Kenya hatta badankood inay soo tilaabaan meelaha kale iska dedegiin tuulooyinkan duurarkan iska dhex degayiin oo mar walba waa aragteen shabaabka ku weeraro waa la fiican yahay in la iska dhiciyo adduunyada sanka buuro waxaan dhihi lahaa Soomaaliya intay naf inoogu jirta xariiqantan mala baabi'inayo Soomaali intay